daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa daraasaddeena shanta gees miisaanka nolosha qaybta u dambeysay aan isla soo gaarnay qaybta u dambeysay maxay tahay macnaha mawduuc tiirarkii shanta tiirarkii miisaanka nolosha shanta ahaa tiirka ugu dambeeyaan joognaa ee dawladda ama dawladnimada guddiga waa soo qaadanay aqalkii waa soo qaadanay waxaan soo qaadanay golihii soo qaadanay waxaan kala soo qaadanay maxaa la jiray aqalkii dawladii hadda aan dhisaynaa il socod wanaagsan dawladda tiirarkanay ku taagan tahay tiirka koowaad madaxtooyada tiirka labaad baarlamaanka golaha baarlamaanka tiirka saddexaad xukuumadda tiirka afaraad garsoorka tiirka shanaad xoogga dalka shantaan ayaa tiir u ah macnaha sharaxaad kale ma gelayna laakiinse waxaan geli doonaa madaxtooyada waxay u qaybsantaa baarlamaanka waxay u qaybsamaa maxaa la jiray xukuumadda garsoorka xoogga marka mid kasta waxaan keenaynaa hadduu ilaahay idmo maxaa la dhihi jiray salka laga rabo inuu ku fadhiisto ama uu ku taagnaado ama joogga laga rabo ama salka laga rabo markii la qutubinaya shayga waxaa lagu qasban yahay meel la eg in la saaro marka waxaan hadda maxaa la dhihi jiray geli doonaa ayagoo faahfaahsan fadlan ila daawadayaal weli waxaan bartinka ugu jirnaa daraasaddeena shanta gees mawduuceedii shanaad miisaanka nolosha qaybtiisii ugu dambeysay dawladnimo markaan soo koobno iyadoo faahfaahsan markaan soo koobno saan ayay noqonaysaa kow madaxtooyo tiirarka dawladda waxaa madaxtooyada baarlamaanka garsoorka xoogga dalka xukuumadda shantaasaa tiirar u ah tiirka koowaad muxuu noqon karaa marka tiirka koowaad ee madaxtooyada shantaanuu ku taagan yahay shantaan maxay kala yihiin madaxtooyada maxaa ka soo baxa shaqaday qabadka maxaa waaye wareegtada dalka lagu maamulo awaamiirta go-aamada masiirka ummadda hoggaanka dalka shantaasaa madaxtooyada ay qaabilsan tahay waana la wada ogyahay baarlamaanka ummadda soomaaliyeed shantan tiir ayuu ku shaqayn doonaa macnaha waa ku soo koogaa tiirka qodobka koowaad magaca ani ma ka hadlaayo macnaha ma ka hadlaayo baarlamaanka meeqaa biloodu fasax geli karaa baarlamaanka xubin ka tirsan haddii natiisay ahaato maxaa laga yeelaa maxaa la dhihi jiray baarlamaanka fadhigiisa muxuu noqonaa meeqaa guddoomiyuu yeelana ani waxaas ma ka hadlaayo baarlamaanka aragtida iyo fikirka uu ku shaqeeyaan rabnaa haddeer kelmad aad iyo aad noo dhibaysa meeshaas ku jirta oo ah hay-adda sharci dejinta sharci ilaahay unbaa dejiyey hadda ilaahay wuxuu dejiyena maxaa la dhihi jiray sidooda in loo dhaafo lagu qaataa fiican maahane haddii la yidhaha sharci dejin kii ilaahay macnaha nama anfacaaya mid annaga aan keensanaa meesha keensanayna camalay noqonaysaa marka aan isku xishoodno haddaan ummad muslimiina nahay baarlamaanka magaca qodobka koowaad magaca inta aad ha loo fiiriyo asalka nolosha shareecada dhammaad meeshaan qariib waa macnaha laakiinse waxaan isku dayi doonaa hadduu ilaahay idmo in aan sharax guud ka bixino si loo fahmo magaca asalka nolosha shareecada dhammaad meeshaan maxaan ka wadaa ayda laftirkeeda aan fahamkaasiyo shay kasta oo adduunyadan yaallo oo ilaahay uu sameeyey uu keenay shantan kama baxsano tusaalooyin waa keeni doonaa laakiin marka hore isaga aan fahno shay kastoo adduunyadan yaallo wuxuu doona ha noqdo wuxuu leeyahay magac wuxuu leeyahay asal bilow ah macnaha
asalkiisa bilowga meeshuu kasoo bilowday nolosha uu aadanaha u leeyahay shareecada meesha uu kaga jiro iyo shaygaas ultimidiisa meesha u dambayso aan ku celiyo qodobkan qodob aad iyo aad waxa waaye faham u baahan shay kas maxaan adduunyadan shay kastoo yaala oo ilaahay sameeyay shay kastoo ilaahay sameeyay adduunyadan yaala shantan shay ma ka baxsano shanta shay maxaa waaye shayga inuu magac leeyahay asalkiisa meel uu ka bilowdo ugu jiro nolosha aadanaha waxtarka uu leeyahay shareecada meeshuu kaga jira dhammaad dad maanta waxay yiraahdeen diinta iyo dawladda waa la kala saaraa ya markaasaa waxaa soo baxay afkiisa hoos u jeeda markii la kala saaray adduunkan maxaa la jiray ilaahay wuu abuuray markuu abuuray wax kasta uu ku dhammaystiray kitaabka la soo raaciyay kitaabkaasina wax u leeyahay kitaabkii wuxuu rabaa fahan qoto dheer tusaale marka baarlamaanka soo ugu shaqeynaa marka shantan baarlamaanka waxaa jira marka wax allaala wixii go'aamo ah la soo gaaro baarlamaanka la geeyaa asagoo laga raba in uu baarlamaanka soo ogolaado shaygan in la isticmaalo ama la hirgeliyo baarlamaanka inuu soo ogolaado waa fiicanta nidaam iyo kala dambeyn waa haye baarlamaanka marka maxaa la dhihi jiray maxaan ka dhiganaynaa ma kuwa la baxay sharci dejiyaasha maan ka dhiganaynaa mase baarlamaan islaami ah oo aragti islaam ku shaqeynayo waa kana baarlamaanka kow markii ay soo gaarto maxaa la dhihi jiray waxyaabihii oo ansixin jiray markay soo gaaraan kow shaygan magaciisa waa inuu magac leeyahay shaygaas markuu magac yeesho waxaan magac lahayn maba jiree asalka shaygan asalkiisa intuu kasoo bilowday wax hore u jiri jiray miya oo la soo isag mas wax cusub maanta magac u baahan waa balka maanta bilaabanaya mas wax soo jiri jiray waa nolosha aadanaha intuu shaygan kaga jiraa nolosha aadanaha intuu shaygan kaga jiraa shareecadan intuu kaga jiraa kama bixi karo wax kasta raadi kama bixi karo dhammaad shaygan meeluu ku eg yahay wax kasta ma jiri doonaan kullu shayna halikun wax kasta waa dhammaanaya ilaahay baa soo haraya bis baarlamaankeena waxaan ka rabnaa inuu noogu shaqeeyo shantan yuusan wax kale ka fiirin macnaha sharcigan anaa dejiyey waxaa ka fiican shantan ha ka fiiriyo tan runtii mujtamaca adduunyada waa ugu duwanaan doonaa dad islaamkooda xafitay oo ku dhaqmaya inaan noqon doonaan aaminsanahay baarlamaanka meesha laga leeyahay wuu akhriyey wuu fiiriyey wuu rogrogay saan ha u fiiriya ha u akhriya u rogrogo shayga magaciisa ha naga kontaroolo shaygan asalkiisa meeshuu kasoo bilowday ha la fiiriyo nolosha aadanaha meel uu kaga jiro maxaa la dhihi jiray shareecada meesha ay kaga jirto arrintan oo uu kasoo geli karo maya iyo haal le waa bis shaygan dhammaadkiisa ultimada meesha u dambaysa intaa markuu iska hubiyo oo wax markaas kadib ayuu wax ansixin karaa waan ka gudbaynaa garsoorka marka shantan tiiran u sameynay shantan garsooran sameynay shanta garsoor waa maxay maxkamadda madaxda maxkamadooda maxaa la dhihi jiray maxkamadda rayidka maxkamadda ciidamada maxkamadda shaqaalaha dawliga ama dawladda shaqaalaha dawladda maxkamadda ajaanibta shantan lay u kala bixi karaan haddii wax dheeri ay jiraan waa noo sheegi kartaa xoogga dalka intaanan u qaybinaynaa militariga oo maxaa la dhihi jiray la ogyahay kaalintiisa booliska kaalintiisa la ogyahay asluubta nabad sugidda sidii la yidhaahdoba la ogyahay shaqadooda sirdoonka oo midka ummadda hurdi inay hurda hadii la rabo midka aad inuu u shaqeeyo laga rabo waayo guulwadaha oo runtii hadda waxaan u malaynaaba guulwado waa laga tegaba meel kasta camera ku xiran laakiin waagii hore tuulada yartaa iyo jidadka iyo guulwada joogi jiray oo dawladda meesha ka ilaaliya okay
حكومة محل يجري ومدة دم أو محل يجري شغال إني نقطة أنا بنوعي ومدة أبو شقة بدن ومركي لي هذا تيرك الدولة ده ومدة أبو شقة بدن كو تيرك حكومة سنتين تير أيكو بسنتهاي تيرك كوات وحنقولنا رئيس الوزراء هذه مدحوينها هردد اللي ديدا رئيس الوزراء ولا سكت عفا لكن مدحوينها إنه نستهدل رئيس الوزراء ولا سمعنا رئيس الوزراء كحجين وزير كحجين وزير الدولة